الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد إخواني، قصة عجيبة رنتي ونجع لاستعدادك أن نلو ذاقه يا ربا إنا إذن سوقود بيو إن شاء الله تعالى وحبذنا إنا نكفى إذن سدونا يا رجيني إن شاء الله تعالى. قصة حوية ولا ليال شيطان با ميردقنا مع العرور تيسا وحي تمنيين إنا يقوران مد كم إذا مركز شياطين تي عرورتا مدك يرى ayaa wuxuu arkay teendha agtooda ku taalo oo dad ay degan yihiin. wuxuu dhahay wuxuu go'aansaday anoo dadkan dhibaateyn ka guuri maayo, waxun inaan ku sameeyo waayo. wa ficlan wuu baxay, wuxuu arkay teendhadii inay joogaan maamo cunug yar haysato iyo sac meel ku xiran tahay. bahalkan watadka la dhahayo oo wataday dhahan carabtu oo teendhada marka la dhisaayo tiirka yar oo dhulka loogu suraayo xarig ku xiran. xarigaas wuxuu ku xiran yahay sacdii. maamadina sacdii ay lisaysaa. kadib shaydaankan wuu yimid, xarigii u dhaqaajiyey. markuu xarigga saan u dhaqaajiyey watadkii sacdii way oraday, way naxday. caanihii horta way daateen. cunugii yaraa oo sacda hor taagnaana way dardartay, wuu dhintay. maamadii way carootay, cunugna ma hayso, caanihii way ka daateen. sacdiya waan sababtaas lahayd. markaasay garaacday, way dhaawacday ilaa ay ka disho. ayadoo xaaladdii ku sugan ayaa waxaa albaab ka soo galay ninkeedii. wuxuu arkay cunugii yaroo dhintay, buu isku naxay. sacdii haddana miid ah oo dhaawacan in la garaacay muuqato. gabadhii garaacday oo ayadana caraysanoo budkeeda haysato intuu qabtay oo si xun u garaaca isagana wuuna furay. way qayla dhaansatoo dadkeeday u yeertay oo inay u dacwooto. wiilashii walaalaheeda ahaa waxay ku soo hajuumeen ninkii gabadhooda qabay oo haddana furay oo saana u galay. si xun bay u garaaceen. ninkii dadkiisuu la hadlay, asana wiilashii walaalihiisa imaadeenoo haddana asagana dagaalkiiya meesha ka dhacay. labadii famili dagaalkooda oo min ahliha wa min ahlihi ayaa isu khilaafay meeshii. shaydaankii weynaa ayaa yaabay arrinta meesha ka dhacday. wuxuu la yaabay cunugii yaraa uu dhalay uu baxay oo dhibaatadan sameeyey. markaasuu le way xag, war maxaa samaysay? waxaan ummaddan oo degneed dagaal ka dhex socdo, inta dadoo dhimatay, intaan dadoo dhaawacan, oo waxa weye cunugii oo dhintay, sacdii oo dhimatay, caanihii oo daatay. war waxaan maxaa samaysay adiga? waxba ma siman aniga bas watadkaas xariggaasoo sacda ku xirnaa oo tiirkaas ku xirnaa keliyan dhaqaajiyey. yacni sacdii oo cabsi geliyey keliya. musiibada meeshay ka bilaabatay. marka walaalayaal, meesha waxaa nooga baxay marka dad badan oo odayaal leh, oo waxa weeyaan salaadiin leh, mas-uuliyiin leh, ayay waxay ku hadlaan laba kelimo aan badnayn. ummad baa isku dagaalaysa, ummadaa isbaabi'inayso. waxa weeyaan dad noola ayaa god galayo. haddii la weydiiye aday maxaa samaysay? mayaan waxba ma sameeye, ani hal kelimaan ku dhaha bes. aniga nasiixaan u jeediyey bes. aniga intaasaa uladan lahaa oo ummadan lahayn in arrintan dhacdo. kelimadaasi ama ficilkaasi yar oo anaka nala yar ayaa wuxuu sababaa ummad inay u baaba'do, ummad inay ku noolaato baqdaa'i shaxnaa, qabaa'il inay isku dagaalaan oo isku baabi'iyaan. laga yaabaa maanta soomaaliya dhan intaan musiibo haysata hal qof inuu sabab u ahaa. hal qof ficil uu sameeyey ama dembi uu galay inay sabab u tahayo maalin kastana dembi la sii galo. dembigii deentiisa weli ay nagu sii harsan tahay, aysan naga dhammaanin ilaa yowmina haadaan xisaabtii ay nagu socoto. marka walaalayaal, ilaahay aan ka cabsana subxaanahu wa tacaala.